daawadayaal markan aanu idiin soo gudbinno madaxweynaha khudbadiisii iyada oo uu ku soo dhoweyn doono maayarka caasimadda Hargeysa Cawl Cilmi Cabdalla. bismillaahi raxmaani raxiim saacad khayr ku xigeen martida sharafta leh baarlamaanka iyo madaxdiisa ay ka mid tahay guurtida shacbigiina sharaf kale meesha isugu yimid waa salaamaysi aniga hadalkaygu ma badna saacad khayr waxa damaanad cada oo muuqata in shacbiga Soomaaliland khaasatan caasimadda Hargeysa iyo nawaaxigeedu ay goosteen inay maanta halkan wada yimaadaan oo qof rag iyo dumar iyo carruur midna maqnayn ujeeddaduna ay tahay in lagu tuso oo lagugu taageero barnaamijkaaga aad Djibouti ka qaadatay waxa weeye nabadgelyada waa lagugu ballan qaaday wax cudur oo magaalada ku jiro aan kuu sheegi karaa waa yaryahay ma jiraan ma odhan mayna kuwa yaryahay dadku shacbigu wuxuu ku waajahan yahay madaxweyne inaanay daqiiqad keliya kaaga habsaamin hawsha culus ee aad ka hayso xaaladda murugsan ee inagaga socota Djibouti sidii ciidanku doorkan u badnaa halkan maray ee fara badnaa ayaa shacbiga kalena taageeradiisa kula daba taagay waa warcad shacbigu wuxuu ilaashanayaa kuwa kaga sheekeeya xaafad xaafad ama qoys qoys waanu la soconnaa waanu ognahay xidid wal oo ay Djibouti soo geliso magaalada saacad khayr Djibouti anigu waxba odhan maayo adaa odhan laakiin waxaan ku soo Djibouti ku odhanaya sidaanu idinku lisnay noogumaydaan hambayn xitaa shawaaricdayada Hargeysa qaar baa ku magacaaban idinka سياسيين يقولوا هذا محمد عبد الله كبير ملا حسب ولادي هو سود واسماعيل marka sidaan uu ku isla looga hambayn ayaa halkaas oo anigu hadalkiisa soo ku soo gaabinaya saacadayn ku soo ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل حال وبكل نعمة وبكل حال حولته لنا. waxaan maanta halkuu idinkaga cudurdaaranaya muddo dheer innagoo aan is-arag oo aanan halkan hadal idinka soo jeedinin maanta oo aan jeclahay inaan si fiican oo dheer arrimo badan wax idinkaga sheego qorraxdina maanta aad iyo aad inoogu kulushahay waxaan doonayaa inaad raalli iga ahaataan dhaqsaan u marayaa wixii aan idiin soo qoray inaad iga raalli ahaataan oo ku sabirtaan milicda iyo kulaylka aad taagan tihiin waxaan u horraysiinayaa erayada aan halkan ka soo jeedinayo eray aan u jeedinayo niman Soomaaliyeed oo walaaladeena oo aynu mar isku dal ahaan jiray oo maanta Djibouti ku shiraya oo dantooda ka shiraya oo la jecel yahay ama lagu dadaalayo in laga raadiyo inaynu heshiiskooda iyo wanaagooda
iyo wax qabsigooda aynaan raalli ka ahaynaynu hor taagannahay arrinkaasoo laga raadiyo daraadii waxaan jecelahay maanta ereygayga u horreeya inaan nimankaas u jeediyo waxaan nimankaa ku leeyahay 10 sano ayuu dalkiinni baaba ahaa dadkiinniina isku foognaa oo aad dhiiggiinnii iyo dhaciinnii xalaasatay qoys iyo reer aanay dhibtaa ay isu gaysateen aanay guriga ugu gelini ma jirto ama waa fara ku tiris haddii ay jirtoba fara ku tiris aad u yar weeyaan haddii ay jirtoba cidaanay guriga ugu gelin balaayada ay isu dhigteen maanta cid ama qolo ama koox run ahaan odhan karta faa'iidaannu ka gaadhnay colaaddii iyo dhicii iyo dhibtii ma jirto ayana ma jirto waa laga yaabaa inay cidi ismoodo inay wax u kordheen runse ma ah oo cid wax u kordheen ma jirto waatuu cali jaamac ka gabyaayee uu yidhi mataan aanad lahayn lama qoto oo waa mas'alo dhaafe markay miirtu kuu dagan tahay ayaa maalin la cabbaaye ogoobay maddada kii jabshay ayaa midigta kaa yaalla booli raandhiis ma yeedh weli nimankiibaa hadalkaygu u jeeda nimankii jabuuti ku shiraayey ayuu hadalkaygu weli u jeedaa booli raandhiis ma yeedh nin ciil qabana lagama adkaanin waa og tihiin waana arkaysaa nimanka tuutsi la yidhaaho tutsi nimanka la yidhaaho iyo nimanka huutu la yidhaaho waxa kala haysta arrintoodii waxay noqotay lugtanay marba ninku qaad marba qolaa gacanta la baxaysa oo xasuuq bilaabaysa si ay qolada kale u mariyaan waa arkaysaan oo cid madhatay ma jirto qolo gacanta taagtay oo tidhi waa nalaga adkaadayna ma jirto waxay arrintoodii noqotay meerto guuldarro ah oo ah ninba waa mare musma kula koro haddaan ilaahay kala qabanninna ilaa yowmalqiyaamaha sidaasaa marba qolo tabcada lagula fogaya dadkaasi idinla mid ma ah haddii aad tihiin reer soomaaliya isku diin ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha isma geeyaan oo ma kala guursadaan idinku waxaad tihiin dad walaalo ah oo iswada dhalay oo ay xurmo iyo xididnimo iyo xaajo weligood ka dhaxayn jirta bulshada caalamka iyada oo aqraar gaarihii jirtay jiriyo doon maanta la jiri karto iyadoo ay bulshada caalamka ah u aqoon daran tahay dhaqanka soomaaliyeed haddana waxay bulshadaasi isu aragtaa inaanay waxba kala hadhin siday soomaaliya u taageeri lahayd dadkeedana u kala badbaadin lahayd dawladda iyo dal kale ay dib ugu dhisi lahayd sidaa daraaddeed alla kama dhiga hadduu shirkaa maantu guuldarraysto ma ay hawl yaraan doonto inay bulshadu
bulshada caalamku mar labaad mar kale soomaali u danqato oo u dawado dad loo yaqaano aqoon-yahan oo ka faallooda siyaasadda caalamka ayaa qaarkood leeyihiin xubnaha shirka Jabuuti isugu yimid cid koo diratay ma jirto Soomaaliyana uma hadli karaan waxna uma gudoomin karaan anigu ra'yigay qof ahaan waxaan u arkaa taas eray been ayaan u arkaa boqolkii qof ee Soomaali ah ee wadani ah ee wada tashada ee wada tashan kara ee u wada tashan kara dadkooda iyo dalkooda way u gudoomin karaan shardiga qura ee loo baahan yahay inuu muuqdo inuu ka muuqdo ficilkooda waxa weeye in dan caama inay wadaan oo ay dadka iyo dalkaba u naseex yihiin oo aanay cidna u eexanayn cidna ka eexanayn Soomaali aafada 10 sano haysatay qof walba ama ha yaraado ama ha weynaado meel kasta ha jooga waa garanayaa siday aafadaas Soomaali ugu timid siday uga baxdana si ay uga bixi kartana qof waliba ra'yigu ka qaba si kasta cidii laaxin wada ee taladu meel aanay ku jirin u tarjeerisa waa la wada arki doonaa waxaanu idinku ducaynaynaa in ilaahay dantiina idinku hanuuniyo oo aad noqotaan duqay iyo dad la mahadiyo inaad noqotaan eray kalena waxaan rajaynayaa waxaan u jeedinayaa dawladda Jabuuti ama rajiimada maanta Jabuuti ka tali waxaan leeyahay ragii idinka horreeyay niyadsami badani nooma dhaxayn labada geesoodbana daliili waa jiri jirta waana jiri doontaa waxaase noo dhaxeeyey waxay carabtu ku tilmaanto tinkii Macaawiye ayaa noo dhaxeeyey oo ay Soomaaliduna kaga maahmaahdo kala lulasho kala go ayay dhaantaa ayay Soomaaliduna kaga maahmaahdo ayadoo rajiimadan maanta joogtaa si wanaagsan weli u gujirsan labadii dalna waa kala go'an yihiin labadii dalna waa kala xidhan yihiin waxay tidhaahaa Soomaalidu karis xun iyana kuwa halabay tidhaahaa waanaynu arki doonnaa ismaroorinta maanta waa tii jaamaca gacanlow ismaroorinta maanta cidda mahadisana waa la arki doonaa waxaanse sheegayaa ragga leh sanduulaannu Somaliland waxaannu rabno ku yeelsiinaynaa
waxaan raggaa ku leeyahay xidigaha cirka ilaah ku beeray ee ka widhwidh leh ayaa idinka dhow inaad Somalilan u talisaan oo waxaanay raalli ka ahayn yeelkiisa waxaan leeyahay raggaasi ha noqonnina walaalayaalow ha noqonnina kaneecadii maroodiga ku tidhi maroodiow waan kaa duuduulayaa ee isadkee yaa duucine ha noqonnina tobankii sano ee Somalilan soo jirtay meelo badan ayaa laga colaadiyey oo aan waxba loola hadhin Butras Qaali Yuunaseen walaalaha iyo carab badankooda walaalaha iyo carbeed badankooda iyo ummado kale oo aanan halkan ku magacaabaynin annaga oo hadda isafgarannay kulligood waxay ku dadaaleen inay Somalilan saaraan dabool ayana dabool iyana ciijiya inay Somalilan saaraan dabool iyana ciijiya caalamkana ka qariya waa annagaasoo weli waa soo taagan weliba waa soo taagannahay sidii uu Cabdigahayru yidhi weligayba meel lagu jabay ayaan shaqila weynaayey ilaahay jecela inuu jiray arwaxayga waxaan kelmaddaa ku wajahan dawladda Jabuuti ku soo gunaanadaya waxaanu raadiyayaasha ka maqalnay waxaa shirka ka qabanqaabinaysaan wafdi noo yimaada oo shirka na keena hadduu wafdigaasi ka kooban yahay xubno reer Soomaaliya ah oo shirka ka socda waanu soo dhawaynaynaa waanu soo dhawaynaynaa wafdigaas laakiin soo raaci mayno ee waanu u soo warramaynaa oo runta maanta ka diran ayaanu daboolka uga soo qaadaynaa warkaas ka bacdi ma laga yaabaa walaaladayow in wafdiga intiisa badani idinku soo noqon ay guryahoodii ku noqdaan ma laga yaabaa baada ka fiirsan dadkaasi waa dad walaala oo ay dan badani ka dhaxayso oo aan u baahnayn fidno laga dhex abuuro intaasaan dawladda Jabuutina ereygaan u jeedinayay u soo gunaanada waxaan doonayaa inaan wax idinka sheego haddaba